fadlan taabo subscribe haddana gambareelkaasuu kugu soo dhaco wax walbaan soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waa idin salaamay asxaabtayda meel kasta aad dunida ka joogtaan. waxaa idinku salaamayaa salaamta islaamka, taxiyatan mubaarakatan min cindillaah. asxaabtayda waxaan soo dhaweynayaa asxaab badan oo channel kusoo kordhay oo nagu cusub. waa idin soo dhaweynayaa gacmaha furan iyo qalbi furan baa idinku soo dhaweynayaa insha allahu tacaala. asxaabta hor noola joogteen idinkana aad iyo aad baa u mahadsantihiin. maasha allah maasha allah. ilaahay waxaan ka baryay muslimiinta inta xanuunsan inuu ilaahay caafiyo, inta caafimaadsan uu ilaahay uu u ziyaadiyo biidni illaahi tacaala. asxaabtayda maanta waxaan idin wadaa dhowr arrimood insha allahu tacaala. يعني South Africa meel kamida uu gaaray nafaqa cream ayaan rabaa inaan idin la wadaago. midda kale nafaqa cream marka aniga aan daygi marsado haddana maxaa dhihi jiray habeenkii maxaa marsada aan ku seexdaa ma wajigaygu qallalan ayaa marsadaa. nafaqa cream se intee laga helayaa, intee wadan oo laga kala helayaa, iyadana waxaan rabaa taasna inaan idin la wadaago biidni illaahi tacaala. kow horta asxaabtayda nafaqa cream wax badan waan ka soo hadlay. waa cream dabiici ah maasha allah. boodhiga weli midka boodhiga the best result ku siinayaa muddo yaro oo gaaban oonan fogeyn. uuna weyn yahay caaga ku jirana waa caag aad iyo aad u weyn. waa ku faa'iideysaa. waxaa kasoo bixin doontaa feedback aan caadi ahayn biidni illaahi tacaala. markaa qabaysatid ayaa dab isku siinaysaa. gabdhaha aroosyada ah iyo gabdhaha jecel mar walba inay xaragodaan ha ka faa'iidaystaan nafaqa cream insha allahu tacaala. kuna soo dhawaada meel kastaa dunida ka joogtana waa lagu soo gaarsiinayaa hadduu ilaahay nafta yarta. asxaabtayda marka meel kastoo dunida ka joogtana waa kusoo gaarsiinaynaa biidni illaahi tacaala. nafaqa cream wax badan uu kaa caawin doonaa hadduu jirkaaga uu qallayl badan uu yahay. boodhiga hadduu ku qalalan yahay, haddii mar walba aala daba taagan tahay cream, in yar oo nafaqa cream aa qaadatay ayaa wax badan kaa caawinayso insha allahu tacaala. intii marsatayna way marsatay, intii aana marsaninna waxaa rajeynaya ayagana inay marsan doonaan hadduu ilaahay nafta yarta uu u daayo u dhammaanteen baynoo daayo. asxaabtayda aniga keliya intaasoo yacni hadda waxaan gaarsiin karaa meelo fara badan. adigana waa gaarsiin kartaa meelo fara badan ayaa gaarsiin kartaa. sheer garee si asxaabta uga faa'iidaystaan. waanu kusoo dhaweyneynaa jumlo iyo tafaariiq baan kugu soo dhaweyneynaa biidni illaahi tacaala. asxaabta joogta South Africa khaasatan aniga aan la joogo, aniga asxaabteeda waxaa deganahay South Africa aan deganahay amaal sheekh South Africa degan tahay. Cape waan soo sheegay inoo yaalaa, waa gabagabo uu sii dhamaanayaa biidni illaahi tacaala. BE wuu idinla yaalaa. Durban waxaa ka helaysaan farxiye maxamed cali uu gaaray maaldhaweed waa taa idin iri. waxaa idiin soo samayn doonaa video inuu gaaray Durban ay idinla soo wadaagi doonaa insha allah. Durbanna wuu gaaray. ka faa'iideysta meel walba ood ka joogto South Africana wuu ku soo gaarayaa insha allah. alaabta hore lagu marsanayana waa idiin soo sheegay oo nafaqa cream lagu marsanayay. haddana habeenkii maxaa ku marsataa amaaley? ani habeenkii inta badan ma marsado, waxaa marsadaa dayga oo alaabtaas ku marsadaa. laakiin habeenka asxaabtayda waxaa marsadaa waa midkan aragtaan. اللهم استعان سواء كاميرا دي كوغو سو دواي انت بدن waa taqaanin. waa gel kaas aloe vera da aragtaan oo 99% ah. midka haba life isticmaali jir laakiin kii haba life hadda wuu iga dhamaaday. marka waa kana asxaabtayda gelka aan la marsado aniga waa midkan aragtaan. habeenkii un baan marsadaa midkan, maalinkii ma marsado. habeenkii asagaasaan marsadaa, asagaasaan ku seexdaa si wajiga yacni waa taqaanaan. jeelka idinkagama sheekaynayo wejiga faa'iidada uu leeyahay iyo siduu u fiican yahay. waa aloe vera gel saa wada taqaanaanba oo maasha allah tabaaraka raxmaan. marka aloe vera gel xitaa haddii uu maxaa dhihi jiray uu dab ku qabsado kale waa la mariyaa gacanta. meesha uu wax kaa gaaray ayaa la mariyaa maasha allah waa kaga bogsanaysaa. middan waa 99%. mid haba life isticmaali jiray oo 100% ahayd taas way iga dhamaatay. marka tan meel gaaban aan kasoo qabsaday. waxaan ku leeyahay ka faa'iideyso habeen marka maalinka aad isku darsatid shumburahaagii, huruudaadii iyo qasilkaagii iyo nafaqa cream. habeenkina waxaa marsanaysaa jeelkan ayaa wajiga marsanaysaa. aloe vera gel ayaa wajiga marsanaysaa. wajigaaga wuxuu kuu noqonayaa waji naacima. horta waxaa looga qayliyay nafaqa cream aa idin sheegay asxaabtayda. gabdhahaygu waxay yiraahdeen aniga khaasatan dadka ila jooga waxay yiraahdeen waxaaban kala qaadi la'anahay gacanta iyo wajigii.
beenadii ma sheegayo gabdho badan oo xasaasiyad laha waxay leeyihin gacanta iyo wejigaan kala qaadin lanahay smooth maasha allah wejigaaga oo naacim kuu noqda oo smooth kuu noqda maxaa kaaga faa'iido badan yaa wallaahi waa the best resulta ka heli doontaa waxaan ku leeyahay soo tijaabi walaasheen way ka soo shaqaysay nafaqa cream si fiican yani gabdhaha allergiga qaba gabdhaha qalalan gabdhaha dry faceka gabdhaha oil faceka waxaana soo wadnaa waxyaala badan aan kusoo kordhin doonaa biidni illaahi tacaala kambaniga hadday noqoto kareemada anti aginka hadday noqoto ay sheegeen inaan kala saarno oilka midka ah iyo midka dryga aan kala saarno kan ana hadda wejigayga waa normal saliidna wuu leeyahay qalaylna ma aha wuuna anfacaa wax lagaa garanayna ma asxaabtayda kareemaha kale waxaa laga yaabaa inuu xoogaha botor kugu noqdaan kan boodar kuguma noqonayo wejigaaga saana u marsanaysaa bas enough waa ku seexan kartaa maasha allah anytime ana marsan kartaa meel kasta aad joogtana ku marsan kartaa waxba kaama dhibaayo laakiin mar walba waxaa fiican shayga loogu talagalay cream marka lagu yihahdo oo la maranayo faceka day and night uu kale leeyahay marka midkan waa midka habeen imaalanba waa marsan kartaa laakiin inaan la baxdo kolley aniga ilama ficno intaan khibrad oga leeyahay wey haweenna kolley inuu waxba dhibayn aan jeclahay laakiin waxaa fiican inaad marsatid oo iska dhaqdid sideedaba kareemaadka wejiga in lagu raagajiyo wejiga asxaabteeda way dilaan wax walba aa marsanaysa wejigaaga daqiiqado kooban ayaa loo qabsadaa si wejigaaga kugu noqdo weji aan nuxurki ka tegin oo yacni nafaqadiisi iyo wixiisi oo dhan ay u joogaan laakiin haddaa wejigaaga ka dhigtid wixii aa marsidba inuu 4 saac 5 saac ama habeenkii oo dhan marka asxaabtay haddii maxaan dhihi jiray hadda maqrib hadaa marsid oo berri subax oo kale ka dhaqdid kareemaadka qaar uma wanaagsan wejiga waxay ka dilayaan difaaca wejiga ayay dilayaan wejigaaga khafiif ayuu noqonayaa kareemo waxaa jira asxaabtayda oo maxaa iska raqiis ah laakiin wejigaaga dhibaato gaarsiinaya ya ama finan badan kaa soo bixinaya ama wejigaaga waxay ku samaynayaan khafiif ayay ka dhigayaan kuleelka uma adkeysan kartid qabow uma adkeysan kartid qoraxda uma adkeysan kartid dabka uma adkeysan kartid waxyaalo badan ayaad u adkeysan karin ya marka kuwaasoo kale ka dadaal waad aragtaan zamanka la joogo shayba shay uu ka manaaficaad badan yuu ka qaalisan yahay ya shayba shay uu ka tayaxun yahay ayuu ka raqiisan yahay marka waxaa idin leeyahay gabdhaha caruusaadka ah jirka hala dhaqo hala isku qurxiyo alaabtan everything ku darsan kartaa oo jirkaaga ku marsan kartaa laakiin waxaa iska ilaalisaa inaad kiimika ku dartid inaad ku dartid boomaatooyinka oo la tuujiyo waayo asxaabtayda horta kariimaha la isku dardaro murigiin ma maqasheen waxa la yidhahda poison ama sun ma maqasheen sunta asxaabtayda aniga hadda gurigaan ku samaysan karaa wax poison ama sun ah waxaa weeye sunta laguu sheegayo waa waxyaalo la isku dardaray waxay isu bedelayaan poison sun ayay isu bedelayaan marka adiga kareem kan xitaa iska dhaaf kareem kale ayaa soo qaadatay kareemkii level loogu talagala ayuu wataa wax walba wax loogu talagala ayuu wataa adiga waxaa ku dartay waxaan loogu talagelin oo extra ayaa ku dartay jirkaagii marka ayaa ku dartay kareemkaagii jirka ayaad marsatay iska dhaaf wejiga inuu nabar kaa soo baxaya jirka dhan buu nabar kaa soo baxayaa ma wanaagsano ya ha ku darsanin kareem kasta sidiisa u isticmaal ma fahmaysaa laakiin kareemka haddaa ku dartid intaasoo boomaatooyina wuxuu bilaabaya kareemka inuu kaa khamiiro it means kareemka hadduu khamiirin jirkaaga uma wanaagsan jirkaagana saa unba u khamiirin jirkaagana sidaa unba u dili jirkaagana sidaa unba u bararinaya marka waxaa idin leeyahay kareemka kalaa ku duldarina kareemka ha iska qaribina siduu kugu taro siduu yacni aad u aragtid natiijadiisa ta kale hadday aragtiin kareem 2-3 days markiiba result aa ka heshay aniga kule ilama wanaagsano waxaa fiican kareemka xoogaha isbuuc 2 isbuuc 3 tartiib inuu kuusoo dhalaaliyo laakiin waa marsaday berri wac maya ma fahanteen marka taasoo kalena ma wanaagsano waxaa fiican shaygii hadda alaabtan dabiiciga oo kale one day wac kaama siinayso tartiib markaa u marsatid markii dambe qurux ay kaa dhigaysaa asxaabtayda kareemaha noocaas ayaa fiican hadda kareem waxaa arkaysaa marka annaga hadda meeshan aan tagno dukaama dadka South Africa jooga way yaqaanaan clickstaa tagaysaa kareemaa kasoo gadanaysaa waa kareem kaa ilaalinayo qoraxda ama waa kareem anti aging ah markaad soo gadato kareemkii waa qaali almost $60 marka asxaabtay haddii maxaan dhihi jiray hadda maqrib hadaa marsid oo berri subax oo kale ka dhaqdid kareemaadka qaar uma wanaagsan wejiga
waxay ka dilayaan difaaca wejiga ayay dilayaan wejigaaga khafiif ayuu noqonayaa kareemo waxaa jira asxaabtayda oo maxaa iska raqiis ah laakiin wejigaaga dhibaato gaarsiinaya ya ama finan badan kaa soo bixinaya ama wejigaaga waxay ku samaynayaan khafiif ayay ka dhigayaan kuleelka uma adkeysan kartid qabow uma adkeysan kartid qoraxda uma adkeysan kartid dabka uma adkeysan kartid waxyaalo badan ayaad u adkeysan karin ya marka kuwaasoo kale ka dadaal waad aragtaan zamanka la joogo shayba shay uu ka manaaficaad badan yuu ka qaalisan yahay ya shayba shay uu ka tayaxun yahay ayuu ka raqiisan yahay marka waxaa idin leeyahay gabdhaha caruusaadka ah jirka ha la dhaqo ha laisku qurxiyo alaabtan everything aa ku darsan kartaa oo jirkaaga ku marsan kartaa laakiin waxaa iska ilaalisaa inaad kiimika ku dartid boomaatooyinka oo la tuujiyo waayo asxaabtayda horta kariimaha laisku dardaro weligiin ma maqasheen waxa la yirahdo poison ama sun ma maqasheen sunta asxaabtayda aniga hadda gurigaan ku samaysan karaa wax poison ama sun ah waxaa weeye sunta laguu sheegayo waa waxyaalo la isku darday waxay isu bedelayaan poison sun ayay isu bedelayaan marka adiga kareem kan xitaa iska dhaaf kareem kale ayaa soo qaadatay kareemkii level loogu talagala ayuu wataa wax walba wax loogu talagala ayuu wataa adiga waxaa ku dartay waxaan loogu talagelin oo extra ayaa ku dartay jirkaagii marka ayaa ku dartay kareemkaagii jirka ayaad marsatay iska dhaaf wejiga inuu nabar kaa soo baxaya jirka dhan buu nabar kaa soo baxayaa ma wanaagsano ya ha ku darsanin kareem kasta sidiisa u isticmaal ma fahmaysaa laakiin kareemka haddaa ku dartid intaasoo boomaatooyina wuxuu bilaabaya kareemka inuu kaa khamiiro it means kareemka hadduu khamiirin jirkaaga uma wanaagsan jirkaagana saa unba u khamiirin jirkaagana sidaa unba u dili jirkaagana sidaa unba u bararinaya marka waxaa idin leeyahay kareemka kalaa ku duldarina kareemka haska qaribina siduu kugu taro sidoo yacni aad u aragtid natiijadiisa ta kale haddii aragtiin kareem 2-3 days markiiba result aa ka heshay aniga kule ilama wanaagsano waxaa fiican kareemka xoogaa isbuuc 2 isbuuc 3 tartiib inuu kuusoo dhalaaliyo laakiin waa marsaday berri wac maya ma fahanteen marka taasoo kalena ma wanaagsano waxaa fiican shaygii hadda alaabtan dabiiciga oo kale one day wac kaama siinayso tartiib markaa u marsatid markii dambe qurux ay kaa dhigaysaa asxaabtayda kareemaha noocaas ayaa fiican hadda kareem waxaa arkaysaa marka annaga hadda meeshan aan tagno dukaamada dadka South Africa jooga way yaqaanaan clickstaa tagaysaa kareemaa kasoo gadanaysaa waa kareem ka ilaalinayo qoraxda ama waa kareem anti aging ah markaad soo gadato kareemkii waa qaali almost $60 markii lagu yiraahdo $50 ama $60 oo kareem ah adi maxaa sugi waxaa sugaysaa 2 saac haddaa marsatid inaad ku noqonayso guduuda carwo ay allowgi ila arkaya gashaanti kaa dhigo inaad ku noqonayso ayaad isu malaynaysaa laakiin ma aha waa marsataa just jirkaaga bodyga facekaaga wuxuu siinayaa glowing dhalaal yar wuxuuna kaa ilaalinayaa gabow kugu soo degdegaya ayuu kaa ilaalinayaa gadaal dambe kuguma soo degdegayo kadkaduudka weli dadka dry faceka waxaa kusoo degdega 20 jir waxaa arkaysaa kadkaduudan labada dhinac age ma aha da' ma aha waa korka qaleelka weeye korkaasoo kale wuxuu u baahan yahay dux in subag lagu shubo fitamiinaad in la siiyo waxaasoo dhan in la siiyo waxaasoo dhan marka asaga ku siinayaan baniyaashana way kala fiican yihiin ya laakiin annaga dilira shaygan waa $50 hadduu 2 saac igu shaqayn waayo dustbinka qashinkaa lagu darayaa dadka kale saas ma aha waxay ka fikirayaan mustaqbalka wixii ku soo socdo ilaahay baa kuley mustaqbalka og in la gaarin ilaahay baa og laakiin waa dadaal ay sii bixinayaan ya hadda zamanka la joogo waxaa la kala garan laaya 20 jirkii 40 jirkii ma la kala garanayo waxaa keenaya waxyaalo badanaa la isku qasi waxyaalo badanaa jirka la marin cuntada la cunayo waa kiimiko jirka waxaa marsanayna waa kiimiko bii'ada aan ku dhex noolnahay hawada aan ku dhex noolnahay dhan waa wax sun ah inta warshad baa kaaga furan halkan warshad kalaa kaaga furan cuntada cunaysa waa la bacrimiyey kiimika ayaa ku jirto ya marka xaaladdu waxay noqonaysaa xaalad cakiran marka maxaa lagaaga baahan yahay gudaha iska nadiifi ma fahantay baatinka iyo daahirka inaad iska nadiifisay fiicanta calooshaada kilingaree boorashka seedka spinachka cabitaanka waxyaalahaasoo dhan hadday calooshaada diidayn oo ilaahay appetite kuu siiyey isticmaal fitamiinadaada isticmaal insideka iyo outsideka labadaba inaan iska qurxino wey
ذكر إلهي وأنا كنت بدرنا ذكر إلهي أنت تكون قرحية قف كعبادة بدنيا قف إلهي أقدر وكوج قرحونيا وكوج دلاليا وكوج أفتيميا قف يعني حمات أقدر بدنيا وجيس وكم قدي بدنيا صعبت إذا مرك أن دالنا إنسايد كنا أسكا قرحينه أو إنسايد كنا أسكا قرحينه مر walba waxaa ku dadaashaa ina ilaahay isku xirtid salliga nabiga aabadisid laa xawla walaa quwwata illaa billahi al-aliyyil azim aabadisid aadna u ducaysid muslimiinta mar walba qof muslim aa u ducaysid mar walba adigana ducadaada ay mustajaabo noqonayso oo ilaahay u sii dhawaanayso ma fahanti duca haddaad ducaysanaysid jamac u duceey keliya ha ducaysanin waa inaad jamac u ducaysaa jamac markaa u ducaysid waxay noqonaysaa ducadaadii inay adigana mustajaabo kuu noqoto maasha allah dhamaantiin waa idin salaamayaa waxaa idin leeyahay marka habeenka seexanaysaan jeelka marsada aloe vera gel soo gado meel kasta oo ka helaysaa habeenkii marka asxaabtayda wakaana jeelka aan rabnaa idinla wadaago insha allahu tacaala iyo abaayo farxiyo maxamed cali insha allahu tacaala oo joogta Durban nambarkeed ayaan kusoo qorayaa asxaabta Durban joogta way la xiriiri karaan haddaad Durban joogtid farxiye ayaa ku caawinayso farxiye ayaa kusoo dhaweynayso marka waa idin soo dhaweynaya dhammaantiin meel kasta waa laga helaa nafaqa cream muqdisho kenya maraykanka yurub south africa marka waa idin salaamaya in badan waa walaashin amaale sheekh oo maanta idinkugu soo gashay laba muhiimad ah inaan habeenkii marsado jeel xitaa hadda kariimaad kale isticmaashid habeenkaa ku barisin waxaa isticmaasha aloe vera gel resultigana waa arki doontaa wajigaaga isagoo nadiif ayaa soo kacaysaa subaxiina waa iska dhaqaysaa howlahaaga ayaa raacanaysaa hadday tahay iyo gabadha walaasheeya farxiya maxamed cali oo Durban joogta South Africa Durban kala xiriira asxaabta Durban joogta dhammaantiin waa idin salaamayaa waa walaashin amaal sheekh oo idin la jecel khayrka iyo wanaaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu